أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشير الشيخ حامد أحمد والسلام يا ولا صدوا. السلام عليكم والسلام ورحمة الله. أخيارتا قيمة هي قدرنت لا صوماليات ملك السوق الدنيا دعالة ذا كجوكتان. كسو دوادا برنامج كيني تحناها أنو مقعدرني تبالها الدونكا كهر بشي رمضان بركة سنة يو دي انتي كدن بيسيبا ayaynu hawada ku kala maqnayn marka waxaanu leeyahay Ramadaan wanaagsan ama Ciid wanaagsan tabaalaha adduunka waxaanu kaga hadalnaa taariikhaha ummadda Soomaaliyeed sooyaalkooga dhaqamada ay maaragtay hodanka ku yihiin iyo mataqaana wax walba oo la halmaala dirka ilma Soomaale sida deegaanadooda iyo caadooyinka ay leeyihiin arrimo fara badan oo hore u jiray oo waxa jira aynu halkan ka tabinay bulshadana aynu ugu hoga tusaaleynay bal inay fahmaan waxa ay Soomaalinimada tahay iyo qiimaha ummadda ay leedahay marka halkii ayaynu ka sii wadi doonaa dhammaan ku soo dhawaada Xasan Ismaaciil Bashiir Sheekh waan ku soo dhaweynaynaa iyo ragga ka horeeyaba marka walaalayaal barnaamijkii ayaynu halkii ka sii wadi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo xubinteena maanta aynu ku doonaynaa inaan kaga hadalno tabaalaha adduunka waa xubin aynu ugu magac darnay Xasan aad baad maasata walaal soo dhawow waa xubin aynu ugu magac darnay garashada dabran dad badan waxay isweydiin karayaan waa maxay garashada dabran dabarka waxaad u taqaaneen xoolaha in loo adeegsado oo lagu dabro laakiin garasho dabran oo waxaa jira aadamaha loo adeegsado ama aadamaha isaga qudhiisa uu isu adeegsado qadar oo daahir soo dhaweynaader حسن وانكسود وينيا هبو أفريقيا وانكسود وينيا مام أفريقيا مركا جراشة دبران أيانو مانتا يفتيمينينا برشة قيمة بدن للصوماليات كحران ايرو تي في iyo aaladan facebooka intaba waxaanu idinleenahay ku soo dhawaada barnaamijkan mama africa aad baan ku salaamayaa soo dhawow salaan sare oo qaali ah garashada dabran waxaynu u kala saafi doonaa ama aynu u kala soori doonaa saddex qodob waliba waxa uu leeyahay ahmiyadiisa iyo waxa aynu doonayno inaan kaga hadalno oo aynu bulshada u soo tabino qodobka koowaad inta aan u gelin bal aynu yar araarta mar walba waa muhiim barnaamijyada in la soo araarto walaalayaal hadalka ama aaraahda nimna waxa la yiri hadalku wax ku fahmaa ninna hawraartu wax ku fahmaa ninna gabayga iyo suugaanta iyo maansada ayaa wax loogu gudbiyaa oo uu maskaxdiisa iyo garashadiisa ay wax ku fahantaa ninna hadalka ama mid reer magaalaysan oo hadal reer magaal ha noqdo ama hadal ma taqaanaa duurxul iyo sarbeeb iyo ma taqaanaa wato ha noqdo marka labadaba suugaan iyo mataqaana hadal iyo hawraarba bulshadeena Soomaaliyeed waxay ka tahay hodan waayo dadka Soomaaliyeed tiknoolajiyada ay adeegsan jireen marka dunida xilligii adduunyada markii la oran jiray the dark age xilligii la oran jiray ama xilligii madooba ay reer galbeedka maanta tiknoolajiyada ku faana ay la joogay Soomaalidu waxay lahayd tiknoolajiyad ay wax isugu tabiso oo ay wax isku gaarsiiso oo col iyo nabadba ay mataqaanaa ay kaga faallooto waxay Soomaalidu lahayd saldhigyo laga tabiyo ama laga laliyo wararka ka dhacay galbeed iyo bari iyo waqooyi iyo koonfur ka dhaca waxyaabahaas oo dhan dadkeena in badan oo kamid way moog yihiin ama way iska mataqaanaa in saabaan sababtoo ah waxa la yiri seven waliba dadkii tiknoolajiyadu maaha wax maanta bilowday waa wax aadamaha la kowsaday nabi aadam calayhi salaam aabaheen iyo hawa ay hawiyadeen
iyo labadii caruurtoodii sida qaabiil iyo habiil iyo labadii hablood ee la dhashay ilaa iyo soo soco tiknoolajiyadu way socotay waayo tiknoolajiyadu waa hal abuur ka yimaada aadamaha oo ilaahay uu ku gaadiid yeelay inuu noqdo qofka dunidan ka mas'uulka ah marka tiknoolajiyadu wax cusub ma ahan waa hab guun ah oo hidaraaca oo soo jiray oo dadku ay hadba nolosha markaa ku gadaaman ay ku fahmayeen qaabkii ay uga dabaalan lahaayeen waxaa kale oo dadku adeegsan jireen sida ay isaga ilaalinayaan ama isaga dhowri lahaayeen dugaaga wax cuna ama wax baabi'iya sida isaga ilaalin lahaayeen waxaa kale oo dadku adeegsan jireen waxa la raacshay ee markaasi mas'uuliyadda looga dhigay sida xoolaha ay dhaqdaan iyo gamaanka oo fardaha iyo dameeraha iyo lamidka intaasoo dhan siday u ilaalin lahaayeen ayay qayb ka ahayd u gaadiid yeelidda dirkii nebi aadan loo sameeyey oo lagu ihaaneeyey markaa aaraartidii haddaan intaa kaga baxo barnaamijkeennan maanta aynu ugu magac darnay garashada dabran ayaanu u gudagelaynaa insha allah qodobka koowaad waxaynu ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna xubinta ama qodobka la odhanayo ama odhanayo talo keen waa talo keen qofka talada keena oo bulshada talada ku soo biiriya waa qof caynkee ah waa inaan isweydiinno waad maqashaa mar waliba hebel ama waa talo keen ama waa aqbalkeen horta muxuu yahay qofka wax talada keena muxuuse bulshada kaga duwan yahay xaguuse ku nool yahay yaase quudiya maskaxda iyo garashadiisa talakeen marka laga hadlayo cabdi siyaad waan ku salaamayaa siman iyo dhammaan akhyaarta qiimaha la soo dhawaada qodobkii koowaad baynu ku jirnaa ee ahaa talakeen marka talakeenku waa maxay xaguuse joogaa yaase quudiya talakeenku waa ruux hal abuur leh waa ruux wax odorosi kara waa ruux wax curin kara marka hal abuur marka aan leenahay waa maxay hal abuurku wuxuu noqon karaa suugaan inaad abuurto wuxuu noqon karaa nolosha sida looga dabaasho inaad keeni karto khataro iyo arrimo adag oo kugu soo wajahan inuu kaa weecin karo beesha ama qabiilka ama jeeska ama qowmiyadda inuu qofkaa ka badbaadin karo halisaha ku xeeran iyo kuwa ku soo fool leh intaba ruuxa hal abuurka leh waa ruux inta badan loo kala saaro dhowr arrimood marka midun baynu maanta ka soo qaadan doonnaa maxamed cabdi soo dhowow hal abuurku wuxuu adeegsadaa oo uu gilgilaa maskaxda iyo garashada labadaba maskaxda waa inta fadhida oo ama horay ama gadaale garashada iyo caqliga labaduna waxay ka yimaadaan iyaguna maskaxday ku guntan yihiin ruuxan markaa hal abuur kale ee aan niri waa talakeen kolka habeenku saddexna uu ahaan la gudbo ayuu inta badan mukhtaar qarni soo dhowow walaalo aad iyo aad ruuxani inta marka dadku hurdaan isagu hurda mallado kolka dadku shaqo u dareeraan isagoo shaqaynayo ayuu isla hadlayaa isla hadalku maahan kii afka waayo mar waxaa jirta adigoo oo wax abuuraya ama wax odorosaya haddana shaqaynaya gaarigii wada marka isla hadalku kan afkun laga hadla maahan maskaxda dadka ayay la hadlaan ruuxa marka hal abuurka leh waa ruuxa marka la hurdana aana hurdaladina soo jeeda marka la shaqaynayana maskaxdiisa la faqaya marka wax la cunayana yacni uurku jirtiisa iyo siduu ilaahay u uumay ka faalloonaya kaasaa marka waxaa la yidhahdaa waa talakeen marka taladiisa waa mid inta badan lagu hodmo ama lagu badbaado dad badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira talakeen ah waayadii hore ee nacabku iyo cadowguba intaan ka badnaana talakeenku aad baa loo dhegaysan jiray aad ayaa loo dhegaysan jiray xaabada iyo geedaha iyo aragtida uu la yimaadana waxay ahayd mid bulshadu ay u aayaan waa idin soo dhoweynayaa soo dhowaa aad baan kuu salaamayaa akhyaarta aad baan idin salaamayaa
marka waayadii hore ee nacabku iyo cadowgu intaan ka badnaa waayo cadowgu dad keliya ma ahayn dugaag ayaa jiray cadow ahaa oo sida libaaxa iyo mataqaanaa haramcadka iyo maroodiga iyo dugaaga nooca xamaaratada sida halaqa iyo masaska ayaa dhulkeena ku badnaa marka ragga hal abuurka leh ayaa looga fadhiyi jiray sida looga badbaadayo waxani marka wuxuu ahaa qofkani talakeenka ah qof habeen iyo dharaar ummaddu ay u baahan tahay aad iyo aad baan idin salaamaya soo dhawaada dhammaantiin qofka hal abuurka leh wuxuu ahaa ruux dadku ay aad ugu baahan yihiin habeen iyo dharaarba ruux laga maarmo ma ahayn hormuudka bulshada ayuu ku jiray kan hal abuurka leh wuxuu ahaa nin laga tisqaato hadallada wanaagsan ee qiimaha iyo sharafta leh dadkeennii hore waxaa jiri jiray waxa la yidhaahdo afmaal iyo aftahan afmaal iyo aftahan aftahanku iyo afmaalkuna waa laba faraq baa u dhexeeya waxaa soo saddexeeya waxa la yidhahdaa afgorodku waan u iman doonnaa marka hore afmaal aynu ka hadalno afmaalku waa qof golokafuul leh golokafuulka waxaa la yidhaahdaa qofka adigoo hor fadhiya aad ku odhan karayso niyo waxaan doonaya inaad ka gabaydo gaarigan ama bee'adan ama gabadhan ama waddanka ama dalka ama dunida maanta siday u dullaamayso bal ka gabay ruuxa marka golokafuulka le waraaq iyo qalin iyo ma raadsanayo isagoo halkaa fadhiyo ayay maskaxdiisa markiiba waxaa ka soo maaxanayo wixii ku habboonaa ee markaa la weydiiyey afmaalku gabayadiisa ama suugaantiisu ma lahan waxa la yidhaahdo meelka dhac ama godoloolo ama carab dalab leh ama isku dirid beeleed ama kala eriyid walaalo ma lahan afmaalku suugaantiisu way dhoorsan tahay waa suugaan lagu kalsoon yahay waa suugaan qiimo badan waxaa kuu soo haray aftahan soo dhowaada ibnu daahir iyo cabdullah soo dhoweynayaa aad baad u mahadsan tahay raxiima inaadeer aftahankaa kuu soo haray aftahanku waa la mid oo waa nin kulansaday hal abuur iyo curin gabayada iyo suugaanta aad u dheereeya ee mataqaanaa meelaha badan taga laakiin aftahanku wuxuu kaga duwan yahay afmaalka aftahanka suugaantiisa waxaa laga dhexelaa isku dir waxaa laga dhexelaa kala rarid beelo waxaa laga dhexelaa isku dirid laba walaalaa waxaa laga dhexelaa dagaal mataqaanaa dad aanan dagaal u diyaarayn inuu dagaal ku abuuro waayo suugaantiisa waxay tahay mid dhiigga iyo dhuuxa maraysa oo isku dayaysa in qofka ay dareenkiisa kiciso kaasina waa aftahanka afgorod baa kuu soo haray muuse soo dhowow afgorodku waa ninka aanan waxna curin waxna tabin waxna sheegi karin afgorodku waa nin aqoon leh laakiin aqoontiisa aanan sheegi karin aqoontiisa ma gudbin karo aqoontiisa dadka kuma kasban karo aqoontiisa bulshada kuma badbaadin karo aqoontiisa waxba kuma odorisi karo kaasi waa afgorod masar miigana soo dhowow afgorodku ilaahay hibada uu siiyey marnaba oo ma adeegsan karo inuu dadkiisa ku badbaadiyo marka qodobkii koowaad baynu ku jirnaa ee ahaa barnaamijkeenna aynoogu magac darnay garashada dabran qodobkii ahaa talakeen waxaynu u gudbaynaa waan ku soo dhoweynaya walaalo waa soo dhowow walaalo ibnu daahir master askar soo dhowow raalli ahaada waxaan u gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijkeenna maanta aan ugu magac darnay garashada dabran qodobka labaad waxa weeyaan waa aqbalkeen waxaanu ka soo hadalnay talakeen iyo qofkuu yahay iyo hal abuurkiisa iyo halkuu ku nool yahay iyo kaalinta bulshada uu kaga jiro marka aqbalkeen baa kuu soo haray aqbalkeen waxa weeye wax waliba oo la odoroso oo la abuuro oo la curiyo oo la keeno ninka qaata ee aan hadal ka keenin ee saxiixa ee aanan xasadka ahayn ee aanan xumaha wadin ee aan xinka lahayn ee marka lagu yidhaahdo gabaygani ama aragtidani ama arrinkani wuxuu ka yimid hebel ama heblaayo siday taho u qaataa waa ruux qalbi wanaagsan waa ruux mataqaanaa maskaxdiisu furan tahay waa ruux ogol
in wixii ka maqan uu biirsado waa ruux wax dheegta oo dadka ka soo dheegta wanaagga iyo sharafta kaasi waa aqbalkeenku marka kaalinta bulshadu kaga jira waa xagee waxa weeyaan ujeeddada marka golo la isugu yimaado goluhu maanta dee waxa loo bixiyo shir wax la yidhaahdo ama kulan laakiin waaga hore golaha la oran jirayo odayaasha talada bixiya iyo abaanduulayaasha iyo duqaytida reerka iyo garmadoobayaasha iyo maxaa la yidhahdaa ragga mataqaanaa guunka iyo ragga gabaxda iyo meelaha isugu yimaadaan baa golo la oran jiray oo raggu ku baano oo lagu caraatamo marka golo la isugu yimaado ninka aqbalkeenka ah waxa meeshaasi ka dhacay wanaag iyo sama iyo xumaanba leba wuxuu mar walba ka qaataa inta miidda ah ee ummadda anfacda ayuu ka qaataa waa ninka aqbalkeenka ah haddaba siduu ahaa marka isagu laftiisa aqbalkeenku ma jiraa maanta dunida aynu ku noolnaa casriga ah aqbalkeen ma ku nool yahay jawaabtu waa haa wuu ku nool yahay laakiin waxaa dambaabiray oo ama dambas ka dhigay ama daah ku qarinaya inta sharwadayaasha ah ee xumaanfalayaasha ah ee aan jeclayn inay bulshadu horu marto bulsho kasta oo gobol kasta oo Soomaaliyeed ama adduunka ku nool waxay leedahay dad wanaagsan iyo dad xun qabiil walba wuxuu leeyahay dad xun iyo dad wanaagsan haddii dadkii xumaa ay qabiilkaasi ka dhashay ay hoggaanka qabtaan bulshadaasi way duntaa oo waxay noqotaa wax ruqda ama waxay noqotaa dad hagaasa haddii laakiin bulshadaasi dadkii wanaagsanaa ee labeenta ahaa ay hoggaanka qabtaan dadkaasi waxay noqdaan sida dayaxa 14aadka la yiraahdo habeenka 14aadka la yiraahdo marka aqbalkeen ayaynu ku jirnaa aqbalkeenka murtida anoo soo xoorinaya waa qofka walaalkii iyo walaashii qadariya taariikhdiisa qadariya dhaqankiisa qadariya qofka u soo wax u sheegaya ee wax u tabinaya qadariya ummadana u gudbiya ilaa eeg adduunka waxaa ugu munaafaqsan waxaa ugu xaasidsan ruuxa inta wanaag loo sheega wanaaggii ma uusan gudbinay intuu dhexda u joogsaday uu xumaan u beddelay waa munaafaqada ugu xun ee maanta ina haysata qof waxa uu dhegaystay oo wanaag ahayd inta qaada xumaan u beddela oo dadkiisii iyo walaaladii iyo dirkiisii iyo ummaddiisii tahlukeeya oo xumeeya oo ceebeeya waa wax maanta inagu badan haddaynu nahay Soomaali marka aqbalkeenku waa qofka noocaas ah ee xumaha ka saafan ee talada qaata ee talada gorfeeya ee wanaagga tabiya ee xumaha ka taga waxaa soo haray qaybtii saddexaad dhagacda soo dhawaa abtoon ku salaamaya qodobka saddexaad ee barnaamijkeena garashada dabran ayaanu u gelaynaa insha Allah akhyaartu waa idin salaamaya dhammaan soo dhawaada Aamina iyo Afrika iyo Maxamed iyo dhammaantiin waa idin salaamaya qodobka saddexaad ee barnaamijkeena aqbal garashada dabran waxa weeyaan waxa la yiraahdaa maskax talaalan waxaad maqashaan gaari dabkiisa la talaalayo ama waxaad maqashaan light la soo talaalayo ama waxaad maqashaan waxa loo yaqaan bacriminta oo ah laba xoolood oo kala gedisan sida laba dibi iyo sac laga kala keenay midna Soomaaliya midna tusaalahan Holland laga keenay oo isku bacriminayo oo waxa la waa la talaalaya deetana waxa ka dhalanaya ilmo xoog iyo qarale ayaa ka dhalanaya marka qodobtan saddexaad ee maskax talaalan maskaxdan maxaa talaalay iyada waa inaan isweydiino maskaxdani maxaa talaalay waxa weeyaan maskaxda talaalan horay waxaan u sheegnay barnaamijka aaraartiisa garashada iyo caqliga waa kala labo ilaahay wuxuu ku siiyay caqli iyo garasho
wuxuu ku abuuray abuuris nooca ugu quruxda badneed ayaa aadamaha loo abuuray sida ugu quruxda badneed ayaa aadamaha ilaahay uu abuuray markaasuu wuxuu ku gaadiid yeelay manfaca iyo qiimaha uu dhulkani leeyahay markaas waxaa haddana lagu yiri mas'uuliyad baa dusha laga saaray oo lagu yiri wax nool aday ku qidmeeyaan adaana ka mas'uul ah ummadda sida ilaahay u qiimeeyay oo bilaadan ka dhigay oo gaadiid yeelay oo sharafay oo ka dhigay walaqad karamna bani aadama ilaahay wuxuu abuuray oo ugu sharaf iyo qiimo yeelay ayaa haddana maanta markaad aragto waxay isu dhaqmayaan sida dugaaga wax aan hambayn oo kale iyo dooxatada oo kale marka maskaxda talaalan ee qodobkeena saddexaad waxa weeyaan buddigeeda aqligaaga iyo garashadaada waa hibo ilaahay ku siiyo tolkaana kuma siin karo qarankaagana kuma siin karo adduunkana kuma siin karo haddii cid kasta la suukeena kuma siin karayaan waa hibo ilaahay adiga uu ku siiyey waa hibo aanan u baahnayn inaad u gasho jaamacado iyo iskuulo iyo kolleejooyin iyo adduunyo kale waa hibo adiga ku gaar ah quruxdeeda adiga aad leedahay manfaceeda adiga aad leedahay wanaageeda adiga aad leedahay marka hibadaas ilaahay ku siiyey maskaxda iyo garashada qiimaha leh ee lagu yiri war xumihina wakaa samaantina wata maxaa sababay inaad xumaan un ku raadiso inaad been sheegto inaad walaalkaa qiyaanto inaad walaashaa been u sheegto inaad tolkaa qiyaanto in xoolihii masaakiinta aad dhacdo in xoolihii agoonta aad ismariso in dadkii iyo dunyadii aad mariso in dhulkii aad iibiso inaad dhulkii sun ku aasto maxaa waxaas dhan kugu wacan cabdiyare soo dhawow garashada marka waxaan ka wadaa maskaxda tallaalan xaggay marka ku tallaalan tahay waxay ku tallaalan tahay oo ay ka qaadanaysaa tamarta ama enerjiga xumaan wade meel kale ku nool xumaan wade xeeb jooga ama bad jooga ama berri jooga ayay ku tallaalan tahay maskaxdani halkaasay ka jaqdaa ama ka soo dhuuqdaa xumaanta dabadeedna waxay xumaantaasi u gudbisaa oo ku sumaysaa bulshada uu la nool yahay waa shay sidaa loo soo gororinayo kale marka xumaantan tallaalan ama maskaxdan tallaalan ma hesho meel kale oo ay naruuro iyo nayaayiro ka hesho ma jirto waayo qofkii isagii baa gartay inuu xumaanta inuu maskaxdiisa ku xirto xumaan wade ama sharwade sidee marka ku dhacaysaa qofkani in wanaag laga sugo sidee ku dhacaysaa qofkani waxa weeyaan maanta waxaa arkaysaa waa uu tukanayaa 5 salaadood soom waa uu soomayaa sakaduu bixinayaa haddana xumaan qofkan xumaan buu haweeney maalin filkinayaa xumaan buu sidaa u firdhinayaa maxaa ka qaldan marka qofku waa inuu isweydiiyo war away soonkaagii salaadaadii meeday sakaad la baxday maxaa ka qaldan qofkani wanaagiisa marka qofku waa inuu isweydiiyo Soomaa war maskaxdani yaa wax u sheega xagee wax ka soo dheegataa yaa la taliyaal waa inuu isweydiiyo Soomaa ilaa qofka markuu kelidii yahay cidna lama joogto waa kelidii waa inuu isweydiiyo si mugle intuu fariisto war maxaa ka qaldan marka qodobkeena saddexaad ee barnaamijka aynu ugu magac darnay garashada dabran qodobkan waxa weeyaan maskaxda tallaalan marka dadka maskaxdooda ay tallaalan tahay walaalayaal way nagu badan yihiin waa taqaanaa anna waan aqaan waa in bulshada laga qabto dadka noocaasa sidee looga qaban karaa weeyaan sidee looga qaban karaa bulshada qofka maskaxiisu tallaalan tahay talakeen waanu aragnay wanaagga uu leeyahay aqbalkeen waynu soo aragnay wanaagga uu leeyahay laakiin maskax tallaalan oo bulshadeena ku badan oo qabiil kasta ku jira oo gobol kasta laga helaya sideenu uga qabanaa kow qofkan isaga horta marka koowaad waa dhibane aad baan ku salaamaya cali walaal sidoo kale Mr. Hudon soo dhaweey walaalo qofkani marka bulshada dhibaatada ku haya
ee maskaxdiisa ay ku talaalan tahay xumaan iyo cunfi iyo xasad iyo xin ay maskaxdiisa ku talaalan tahay bulshada marka sidee uga qabanaa qodobka koowaad horta isagu waa dhibane waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano bukaan socod waa dhibane waa bukaan socod isagu isma ogo laakiin waxa weeyaan waxaa ka shidaal qaata xasan deeq soo dhawow waxaa ka shidaal qaata hadday waxaan nidhi dugaag baa jira dugaaggu waxa weeyaan waa inta micida leh iyo inta xamaarata iyo inta haadda aba haad dugaag ahaa jirta xamaarata sida xalaqyada iyo masaska libaaxa iyo haramcadka iyo shabeelka iyo waraabaha iyo waxaasoo dhan waa dugaag kale qofkani markaa wuxuu quudinayaa aanu ka hadlayna ee maskaxdiisu tallaalan tahay bila'aadan keliya ma quudinayo wuxuu quudinayaa xataa dugaaggaasi dhibaatada badan marka qofkan xumaan wadaha hadduusan isagiis ogeyn oo isagii uu yahay maxaa la yidhaahdaa dhibane ama bukaan socod yaa dabiibi kara sidee loo dabiibi karaa ama loo buulayn karaa ama loo baanan karaa waxaa loo dabiibi karayaa cabdiraxmaan soo dhawe walaalo ku salaamayaa waxaa loo dabiibi karayaa kow anigu saan aaminsanahay qofkan oo si wadar ah si collective ah wadar ah loogu yeero oo la soo galo fariisiyo golaha raggu fadhiyaan la soo fariisiyo oo halkaa diirka looga saaro waayo xumaan wadahani haddaad adigu gooni oola baxdo ood ku tiraa wanaadeeroo dhibkan jooji 200 oo qofaa kaa horraysay oo u sheegaysa dhibta inuu joojiyo ma joojinayo laakiin waa in la soo galo joojiyo xumaan wade waa in golaha ragga u dhayihiin inta la soo joojiyo la yidhaahdo maanta wixii ka dambeeya ilaa raggii hore ee awowyaasheen hal adayga iyo hufnaanta iyo kartida waxay ku lahaayeen waxay ahaayeen dad meesha lagu hadlaya la wada joogo oo wixii laisku ogaa la wada qaado ma ahayn dadkeenaan maanta kala dhuumanaya ee ninba nin wax u sheegaya ma ahayn eeg 100 nin ee reerka u taliya haddii meel laisugu keeno oo la yidhaahdo taladaasaan wada leenahay nin ka bixi karaya ma jirta go'aankaasi waa raganimo ninkii ka baxa haddii waa la yaqaan wax la marinayo laakiin maanta 100 nin ee reerka u talinayay nin waliba meel buu joogaa nin waliba meel buu taagan yahay isagaa doonayo inuu kii xumaanta wada wax u sheego isagaa mastar miicaad soo dhawow isagaa doonayo kii dhibaatada wada inuu dadku wax u sheego kii wanaagga wada wax u sheego siyaasigii wax u sheego odaygii wax u sheego hooyadii wax u sheego laakiin raggii hore sidaa may ahayn raggii hore hal meel bay taladu ka go'aysay hal la qaldanaado ama hal la saxsanaado hal meel bay taladu ka go'aysay waxaa la odhanaya gole oo xeerbeegti leh oo abbaanduulo leh oo abbaanwarro leh oo maxaa la yidhahdaa abqari leh oo maxaa la yidhaahdaa nooc waliba laga helay ahaayeen xumaan wadaha marka maanta jira haddaan hadalkayga gudiba ugu soo noqdo xumaan wadaha maanta jira waxa keliya lagu badbaadin karayo bulshadana looga dhex saari karayo waxa weeye golo loo dhan yahay in la keeno oo la yidhaahdo war hebelow dadkii waad dhibtay dadkii waad liqday ummadi ma noolo ilaa waagi hore xataa waxaa jiri jiray qofka hadduu dhibaato u keeno qoyska ama qabiilkiisa xeer baa jiray hadduu qabiil kale dhibaato u geystana xeer baa jiray war xeerkii xaguu maray xeerkii raggii awowayaasheen ay sameeyeen ilaa annagaba rag baynu nahay aqoon iyo garasho iyo dayaxaasaynu gaadhnay maxaa inoo diiday inaan xeer la nimaanno samaysanno marka haddii marka ninkani la soo galo fariisiyo oo runta loo sheego oo la yidhaahdo ilaa qabiilku waa inshuransi eeg walaalayaal qabiilku waa inshuransi waa caymiska qofka ku jira haddii gaarigaaga maanta inshuransi aad geliso waa inaad raacdo soo ma ahan awaamiirta iyo shuruucda inshuransiga u yaalla waa haa haddaad tidhaahdo laakiin gaariga inshuransi ha lii geliyo laakiin shuruucda iyo nidaamka inshuransiga u yaallo ma qaadanayo wax iskeenaya ma aha qabiilkii soomaaliyeed ee qiimaha lahaa maanta rag baa dilay xataa qabiilkii baa la dilay oo qabyaaladii baa la dilay oo qabiilkii iyo qabyaaladii baa ayaa gar u baahan oo la war inaan naloo garnaqaan doonaynaa
marka waxaa loo baahan yahay maadaama qabiilku uu yahay insuransiga ninka gaariga wata ee maalin walba meel ku dhaca ee maalin walba qof ku gardarooda ee maalin walba traffic lightka jiira dee kambaniga wuu ka shiri oo wuxuu oranayaa war ninkani dee dhibaatoon buu nagu hayaaye maxaan ka yeelnaa dee ama waa lagaa saaray insuransiga ama waxaa lagugu kordhin lacag aadan awoodin si aad quyar u socoto oo aad awaamiirta u raacdo soo ma aha xumaan wadaha Soomaaliyeed ee waqooyi ku nool ee koonfur ku nool Djibouti Soomaali galbeed ogaadeenaya NFD ku nool dadka insuransiga uu kula jira ee qabiilka inta u yeelaan ayaa runta loo sheegi karaa waxa la oran karayaa maanta wixii ka dambeeya reerkaasi ka mid ma tihid haddaadan sidaa samayn waa imisa xumaan ruug baa inugu jiro qabiil kasta inteen nin oo xun buu leeyahay wallaahi waxaan ku dhaaranayaa qabiil kasta oo Soomaaliyeed inta nin oo xun ku jirto waa la hayaa tiradooda 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 laakiin dadka wanaagsan ee qabiil kasta ku jira lama tirin karo way badan yihiin ciidaasi ka badan yihiin marka inta xumaanta wada ee sharwadayaasha ee dadka isku dira ee qabiilkooda dadka ku dira ee qabiilka kalena xumaanta u geeya waa la soo aruuri karaa runta loo sheegi karaa hodan soo dhawo hodan nuur abwaana hodan soo dhawo Cabdiraxmaan soo dhawo Master Duwane kolka walaal qodobkii saddexaad baynu soconaa daawadayaal dadka nagala socda aalada Facebooka iyo TV-ga Airo TV barnaamijka maanta waa barnaamijyadeena taxanaha ahaa ee ugu magac darnay tabaalooyinka adduunka waxaan kaga hadlaynaa 3 qodob barnaamijkan xubinta waxaa la yiraahdaa garashada dabran maskax la dabray oo la seeteeyay maskax inta la dabray haddana seeto loogu daray weeyaan qodob xubinteena maanta magaceeda waxaynu kaga hadlaynaa 3 qodob oo kala ah talakeen iyo aqbalkeen iyo maskax talaalan marka qodobkii ugu dambeeyay maskax talaalan ayaynu wadnaa oo insha Allah aynu ku guda jirnaa gabagabada marka barnaamijkeenan waxa uu yahay adduunyada lama arag adduunyada maanta aynu ku noolnahay waxaa jira dad sharwadayaal ah oo meel walba caalamka ku nool laakiin sharwadayaashaasi waxay Soomaalidu tiraahdaa gardarro garab og sharwadayaashu waxay haystaan meel bay ku xanjaan meel ugu dhegsan dad baa soo taban taabiya dad bay hoosta kaga jiraan dadkaasina waa la yaqaan waxaa kaloo jira samawadayaal dad samaha ka taliya khatar barqadle soo dhawow dadka samaha ka taliya waxaanu niri adduunka oo dhan bay joogaan oo waa dad la yaqaano oo waa dad sharaf leh wayna badan yihiin lamana soo koobi karo aqal walbay joogaan qobol kastay joogaan qabiil kastay leeyihiin laakiin sharwadayaashu waa dad kooban oo la qaban karo hadalkayga murtidiisa walaalayaal waxaan ku soo gunaanadayaa barnaamijkeennan aan maanta ugu magac darnay garashada dabran qofkii daawada ama hadda ku soo biiray ee dib u daawan doona walaalayaal waa ammaano yacni waxaa loo baahan yahay waxa kasta oo aad maqasho oo wanaag ah inaad sii tabiso oo aad u tabiso ummadaada u jeelan inay wax wanaagsan maqasho liban cali liban soo dhawo walaal aad baan ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee dir wadaagta ah ee dhaqan wadaagta ah ee dhalasho wadaagta ah ee dhiig wadaagta ah ee dheeh wadaagta ah waxay u jeel qabaan in lagu habo wanaag waxa wanaagsan awowga aabaha wuxuu kaaga sheekeeyay wanaagii awowga lahaa awowgaana awowgii baa uga sii sheekeeyey maanta xilligan aynu ku noolnahay waxaa arkaysaa aabe caruurtiisa xumaan ooga sheekeynayo acuudu billaahi min ashaytaani rajiim qorasare axmed weli goos soo dhawow adduunyadii yacni awowayaasheen ama aabbayaasheen waxay u tabin jireen carruurtooda qiimaha iyo sharafta bulshadoodii hore ay lahaayeen deegaankooda qiimaha uu leeyahay wanaagga iyo walaalnimada iyo wada dhalashada
islahaanshaha bulsho abtinimada qiimaha ay leedahay ayaa looga sheekayn jiray laakiin maanta waxaad arkaysaa waalidiin carruurtooda xumaan ku anqarinaya ama xumaan ku barbaarinaya carruur waalidiin hooyo iyo aabbo carruurtoodii cuqdad iyo xumaan iyo xasannimo ku barbaarinaya war ilmaha aad dhashay ee ubaxaaga ah ee adiga aad u tahay role modelka ama aad haldoorka u tahay ma waxaad wanaagsanaatay inaad xumaan ku barbaariso ood ku kacaamayso mise inaad ilmahaaga wanaagga iyo sharafta iyo cisiga adduunyadu dadka ay ku nool yihiin ay leeyihiin inaad u tabisaa qurux badan hooyo kasta iyo aabbo kasta wuxuu jecel yahay ilmihiisu inankiisu inuu hanad noqdo ama gaashaanqaad oo uu dadka howrmuud u noqdo hooyo kasta iyo aabbo kasta waxay jecel yihiin inay carruurtooda ka fakeraan meelay madaxa dhigi lahaayeen iyo waxay cuni lahaayeen iyo hugay ay xidhan lahaayeen iyo iskuulka iyo madarasadii ayay ka fakeraan laakiin hooyada iyo aabbaha xaq uma laha inay carruurtooda xumaan ku koriyaan hooyo adeerkaa reer hebel baa dilay hooyo abtigaa reer hebel baa dilay hooyo dowlad heblaaya sidaa noo gashay hooyo waxaa weeyaan xaqaagii reer hebel baa qaatay hooyo gabadhaasi gayaankaagii ma aha waxaa weeyaan waa waran dib kugu soo noqon doono waalidka waxaa ilmihiisa ku korinaya ee maskaxdooda ku kobcinaya ilaa maskaxda waa halka ugu muhiimsan ee aadamaha laga kobciyo ee garashada qofka laga bilo waa maskaxda haddaa maskaxdaada ilmihiisa buuxisa xumaan maxay noqon doontaa raalli ahaada waa liga soo dhex galay hadalkayga markaa murtidiisa walaalayaal waxay tahay ilmahaaga hiil buu kaaga baahan yahay hiilada ilmahaaga ay kaaga baahan yahay ma ahan dharka uu xiranayay wuxuu cunaya iyo meeshuu dhinaca dhigayo iyo iskuulka iyo ma aha ilmahaagu hiilka uu kaaga baahan yahay waxaa ugu muhiimsan akhlaaqda wanaagsan asluubta iyo xishoodka inaad ilmahaaga barto ilmahaaga inaad barto inuu adeero wanaagsan oo sharaf leh uu leeyahay abtiyaal qiimo badan inuu leeyahay habaryar iyo macooyo iyo eedooyin wanaagsan inuu leeyahay inuu ka dhashay dirka ugu qiimaha badan adduunka oo la yidhaahdo soomaali ilmahaagu inuu soomaali yahay oo dadka ugu qiimaha badan adduunka inuu ka dhashay waa inaad ku barbaariso waa inaad tidhaahdo ilmahaada waa inaad barto inuu intaas oo qarni adduunkan soo jiray oo uu talo lahaa oo uu teelo lahaa oo uu fakar lahaa oo uu wax kasta adduunkan ku soo biiriyey waa inaad ilmahaaga u sheegto ilmahaaga adigaa ka dhigi karay hacowgu waa nacaska nooca ugu liita hacow aan kicin oo aan dagaalamin oo aan fakerin oo aan waxba iska dhicin adaa ilmahaaga ka dhigi kara ama adaa ka dhigi kara fariid libaax ah oo gaashaanqaad ah oo dadka mataqaanaa adduunka yacni noqdo dadka wax la weydiiyo oo role model noqdo labadaba adaa ilmahaaga midkaa doonta ka dhigi karo nuur aadan soo dhowow soo dhowow cali soo dhowow ku salaam walaalo sucaad soo dhowow walaal marka ilmahaaga hiilka uu kaaga baahan yahay hadday gabarh tahay hadday wiil tahay waa inaad waxa wanaagsan ku barbaariso ilmahaaga intaad waxaa jira mas-uuliyaddu xeer waxay leedahay xilli ilmaha inta uu xaynka ku haysto ee uu yar yahay oo hadaaqtamayo ama ilaa intuu iskuulka sare ka gaarayo 12 jir adaa maskaxdiisa kobcin kara wax ku beeri kara wanaagga iyo sharafta iyo qiimaha ku beeri kara laakiin xilli waxaa jira uu nin weyn noqonayo oo isaga uu tashanayo oo uu gaarayo kolka inuu isaga aragtidiisa ama riyadiisa uu martaqaanaa uu raadsado markaas talaad ku leedahay iyo tusaalayn ayaad ku leedahay laakiin xoog kuma lihid laakiin inta uu yar yahay uu kobcayo ilaa geedka waxaa layidhi geed yaraan ku qalloocday weyni kuma tooso geedka marka uu yar yahay waa hallaan waa la shakaalaa oo geesaha laga dhigaa looxaan waa la shakaalaa wuu baxaa waa biyaa lagu shubaa wuu dheeraadaa laamo kalaa ka soo baxo markuu gahayro oo geed weyn noqdo isagaa iskiisu taagaya malaayiin buu noqonayaa carruurtuna waa sidaa markay yar yihiin waa in hareeraha laga joogo khaasatan marka qurbaha la joogo dadka inta badan carruurta qurbaha bay ka hadlaan
laakiin waddanka gudihiisa dadku inta badan kama hadlaan asluubta iyo akhlaaqda gudaha dadka jooga laysmaba weydiiyaba waxaa loo haystaa ilmo inta dhasho isagoo asluubaysan oo diyaarsan oo xigmadaysan inuu iska soconayo ayaa dadku qaar u haystaan oo waxay ku oranayaan dee ilmaha Soomaaliya jooga bee'ada korinaysa war bee'adu tii maaha bee'adu way isbedeshay bee'adu fusuq baa yimid bee'adi waxa weeyaan sunba dhulkii lagu aasay bee'adi waxa weeyaan hawadu sidii hore maaha dhirtu tii hore maaha caanuhu kuwii hore maaha xooluhu kuwii hore maaha bee'adu tii dadka iska korinaysay ee inta ciida la iska cuno la iska soconayo maaha maanta waddankii ilmaha jooga iyo ilmaha qurbaha jooga isku si ay u baahan yihiin in loo hago oo wax loogu sheego Hashim Sheekh soo dhawow Nuur waan ku salaamayaa Maxamed Muuse sidoo kale walaal marka walaalayaal barnaamijkeenan garashada dabran waa soo gabagabaynaynaa muhiimaddu waxay tahay in war amaanada ma ahan lacagta ama hantida ama adduunyada lagu dhiibtay amaanada waxaa ka mid ah waxa aad maqashay ee wanaagsan inaad tabiso oo aad bulshadaada u geyso oo aad wanaaga ka hadasho aniga yaa igu qasbi karaya anoo helaya inaan wax wanaagsan ka hadlo yaa igu qasbaya oran kara war xumaan ka sheekee qofna iguma qasbi karade qofna iguma qasbi kara Abwaan Bashiir Good soo dhawow Cabdisalaam Sheekhdon waan ku salaamaya walaalo garashada dabran waxaanu kaga hadlaynay maanta 3 qodob oo la kala yiraahdo qodobka koowaad oo ah talakeen oo na ka soo hadalnay aqbalkeen oo isaguna aynu aad u lafagurnay iyo maskax ku talaalan xumaan iyo xin iyo xiqdi iyo xaasidnimo maskax ku talaalan oo qof kale ku xidhan George soo dhawow saaxiib ku salaamaya intaasaan markaa ku soo gunaanadeena barnaamijkeennii garashada dabran waxaan nagala socoteen aaladda Facebooka iyo TV-ga Airo TV waa barnaamijyadeena taxanaha ee loogu magac darnay tabaalaha adduunka aynu kaga warramaynay taariikh sooyaal ummadeed iyo dhaqan iyo hiddo ummad Soomaaliyeed iyo odoro siyaasadeed iyo mid nololeed iyo xaaladaha taagan waa abrone oo mar kale idin leh walaalayaal waxaynu u baahannahay inaynu nafteenna u hilino awlaadda iyo haweenka iyo ooriyaheena aan u hilino waalidiinteen intii nool ilaahay mataqaanaa ciise iyo sharaf adduunyada dushooda ugu dekeeyaan intii dhimatana Allah u naxariisto waalidiinteenna aan u hilino waalidiinta kuwa nool iyo kuwa dhintayba waxyaabaha loogu hiilin kara waxaa ka mid ah inaad wanaag samayso wanaagga adiga aad samayso way gaaraysaa waalidiinta waayo farxad bay u tahay aabbaha lagu yiraahdo inankaaga ayaa waxaasoo wanaaga sameeyey farxad iyo hididiile iyo waxay u tahay iyo reyn laakiin hooyada inankeeda xumaan u looga sheego hooyo ma habaartanto laakiin xuq bay leedahay hooyada inankeeda lagu yiraahdo hebel baa sidaan sameeyey tulkii dhibay dadkii baabiiyey waddankii gatay sun meel ku aasay dhibaato sameeyey hiba soo dhawow yacni way ka xuq bay leedahay sidoo kale aabbaha lagu yiraahdo wiilkaagaa sidaa sameeyey oo dadkii dhibay oo ummaddii kala kaxeeyey oo dadkii shar ku dhex wada oo been sheegaya oo xin wada wuu ka xumaanayaa marka si waalidiinteen aysan nooga xumaan walaalayaal wanaag samee wanaagga aad samayso hooyada iyo aabbahaba way ku faanayaan adeerada habaryaraha eedooyinka inta nacabku jeela ee adiga ku jecel way ku wada faanayaan marka waxaan kaga tegayaa barnaamijkeennii garashada dabran qayb kale ayaanu kaga hadli doonaa qaybta ku xigta insha Allah waxaan idinkaga tegayaa wanaag fara badan iyo Soomaalinimo iyo wax isu ahaansho iyo waxa aynu wada leenahay oo aynu wada ilaashano waxa aynu kala leenahay waa yeelkeed waxaynu ku kala gedisannahay iyaduna waa yeelkeed laakiin waxaynu wada leenahay ee isku kaayahaynaya ee haddaba isku kaayahaya ee isku kaayso dumaya aynu wada ilaashano ummadnimadeena aynu ilaashano qoomiyadnimadeena aynu ilaashano diinteena qiimaha la ilaashano dhaqanka iyo afka qiimaha la aynu ilaashano waxaasoo dhan waan wada leenahay gabar iyo wiilba waxaan idin leeyahay
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.